10 Minutes Nomadic Healing Podcast, a Twitter space and content aggregator that will soon be opening on Twitter and YouTube to discuss world democracy, security, economy, politics, peace, human rights, science, literature, and social development as well. It's an open mic. You will soon be able to watch and listen to this program on YouTube, Facebook, and Spotify. kulanti wanaagsan saaxiibayaal mar kale barnaamijkeena caawa wuxuu daaran yahay Mental Health Awareness Week 2021 toddobaadkii wacyigelinta caafimaadka maskaxda ee sanadkii tagay 2021 warbixintan waxaa diyaarisay sanadkii tagay UK Mental Health Foundation sida ku xidhnaanta biyada ama nature-ku ay faa'iido ugu leedahay caafimaadka dhimirka. Executive summary-gu wuxuu noqonayaa xiriirka aanu la leenahay biyada. waa muhiim inaan ogaano ka fikirno oo aan qadarino biyada dabiiciga ah ee nagu xiran. waa arrin muhiim ah oo lagu taageerayo caafimaadka maskaxda iyo ka hortagga dhibaatada dhimirka. marka ay timaado faa'iidooyinka caafimaadka maskaxda biyada ayaa la qeexitaan aad u sareeya. waxay macnaheedu noqon kartaa meelaha cagaaran sida jardiinooyinka, kaabadaha, seeraha, kaymaha iyo sidoo kale meelaha buluuga sida xeebaha, webiyada, dhulka qoyan iyo kanaalada. waxa kale oo kamid ah geedaha ku yaala wadooyinka magaalada hareeraheeda, beero gaar ah iyo xitaa dhirta gudaha ama sanduuqyada daaqadaha la saaray. waxaa la yaab leh xitaa daawashada documentary filmska ka sheekeynaya biyada ayaa la muujiyay inay u fiican yihiin caafimaadka dhimirka. tani waa warbixin aad u wanaagsan maxaa yeelay waxa ay la macno tahay faa'iidooyinka caafimaadka maskaxda ee nature-ka inuu heli karo ku dhowaad qof kasta oo inaga mid ah iyadoo aan loo eegin goobta uu ku nool. warbixintu waxay bixinaysaa caddayn kooban oo ku saabsan sida iyo sababta xiriirka dabiiciga ah uu aad muhiim u yahay faa'iidana ugu leeyahay caafimaadka maskaxda. warbixintu waxay sidoo kale muujinaysaa sida aan loogu sinayn faa'iidooyinka biyada ama dabeecadda ee koox gaar ah ama tallaabooyinka loo baahan yahay si wax looga qabto sinaan la'aanta. 10 Minutes Nomadic Healing Podcast, a Twitter space and content aggregator that will soon be opening on Twitter and YouTube to discuss world democracy, security, economy, politics, peace, human rights, science, literature, and social development as well. It's an open mic. You will soon be able to watch and listen to this program on YouTube, Facebook, and Spotify. biyadu waa baahi muhiim u ah dadyo badan oo inaga mid ah ilaalinta nafsiyan iyo jir ahaan caafimaadkeena. barnaamijkii cilmi baarista coronavirus ee caafimaadka maskaxda wuxuu sheegayay in waqti ku qaadashada dibadda ay ahayd mid ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee suurtageliyay dadka inay la qabsadaan walaaca masiibadii COVID-19. dabeecadda ayaa door muhiim ah ka ciyaarta caafimaadka dhimirka inta lagu guda jiray aafada. 45% ku dhowaad kalabar dadka UK ayaa sheegay in booqashada meelaha cagaaran sida jardiinooyinka ama kaabadaha dadku ay ku nastaan ay ka caawiyeen inay la qabsadaan walaaca. tirinta tayada kordhinta deegaanka ama biyadu waa muhiim. hawo nadiif ah iyo jimicsi ayaa muddo dheer lagula taliyay inay noqoto hab ay dad badani ku dareemeen fiicnaan jir ahaan iyo maskax ahaan. dabacadayntu waxayna tusaysaa in tayada xiriirka aynu la leenahay biyada ay qayb ka tahay sababta ay saamayn togan ugu yeelatay caafimaadkeena. dadka ku xidhan biyada ama nature-ka wanaagsan waxay u muuqdaan kuwo faraxsan. cilmi baaristu waxay muujinaysaa in dadka sida aadka ugu xidhan nature-ka ay inta badan ku faraxsan yihiin noloshooda, waxayna u badan tahay inay sheegeen inay dareemayaan inay noloshooda qiimo weyn ugu fadhiyo. biyada ama nature-ka ayaa horseedi kara shucuur wanaagsan sida deganaan, farxad, hal-abuur, waxayna fudaydin kartaa feejignaan. xidhnaanta nature-ka waxay la xiriirtaa heerarka hoose ee caafimaadka maskaxda ee liita, gaar ahaan iyo jabka hoose iyo heerarka walaaca. 10 Minutes Nomadic Healing Podcast, a Twitter space and content aggregator that will soon be opening on Twitter and YouTube to discuss world democracy, security, economy, politics, peace, human rights, science, literature, and social development as well. It's an open mic. You will soon be able to watch and listen to this program on YouTube, Facebook, and Spotify. biyadu meel walba way ka jiri kartaa, laakiin deegaan tayo sare leh si siman looma wada heli karo. inkasta oo biyada wanaagsani laga heli karo meelo kasta oo dunida ka mid ah, meelo dabiici ah oo tayo sare leh oo aan ognahay
inay u badan tahay inay caawiyaan caafimaadka maskaxdeena haddana maaha kuwo si siman uu heli karo qof kasta oo inaga mid ah tani waa sawir aad u adag marka loo eego inta aan ku noolnahay meelo dabiici ah oo tayo sare leh daba saaxiibayaal si aad u hesho barnaamijka kan xiga fadlan rukumo lana wadaag saaxiibadaada